شباب يوحى صهر داعش ينت الله المانت سؤال بندي ويديننا بالله عليكم ميدين ترسيهن انت الدشان تراهان كلي مو تقانا انت الروح الدشان واحد كد دشان ما قرنيسان ما حق با ما بادل با ما منايين inay dhintaan حديث بيدريشدان waxay yiraahdaan thumma la yub'athuna ala niyatihim Aisha waxay tiri nabiga wuxuu sheegay sallallahu wasallam alayhi ummad soo socoto oo meel banaan oo maka agteeda lagu rogi doono oo suuqlaydoodii iyo kuwii soo duulay iyo kuwii inkaarta qabayba waa isla rogi doona kaasa waxay tiri rasuulallah oo kuwaas masaakiinta oo dagaalka ku jirin oo meesha lagu leeyay xalkooda noqonaya waa la rogayaa buu yiri niyadoodana lagu soo saari doona shabaabku markay dadka leeynayaan tarabta u leeynayaan xadiiskaasi daliishadaan laakiin xadiiska wuxuu ka hadlayaa musiibo xagga rabbi ka soo dhacday xadiisku ka hadlimayo in dad bini aadan oo jira ay iyagu musiibo noqdaan oo marka intay dadka soo laayaan ee ilaahay u diraan yiraahdaan ilaahu intaasan ku soo dilay adigu kala saara kii fiicnaa kii xumaa adigu ma fiicanta sida u dish xagaysa ka timid fiicnaanta ummadda lagu kharibayo lagu leynayo amnigeeda lagu baalkeenayo waxaad ku jirtaan oo sameeynaysan ummadda cadawgeeda u nugleynaysan بكل ما في الأمر وإنت هدايدان عدوغا لا shaqaysanaynin sida tan ummad loogu heeliyo kuwa la soo qalday aaminsan wuxuma ummadda ka qaldan ee waxaan rabnaa inaan wax u hagaajino war qofkaad wax u hagaajinaysa hadaad disho maxad hagaajisay billaah alayk yaad xogaajis aqligu inta ma garan waay alaysa minkum rajulun rashid wani wax kala garanaydu kuma jira miya maskaxda xageeba la aadeen kuwa culimada sheeganahaya ee culama usuuga زورك يا بوتانك الدين توقع بين شيء إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا واحد الماء كقل ديسان كفير صدا وحيدا أبدك إن أدرتين المصوم عليه هأدرنا الماء بعد يزكى وقاضنا إنسان وحاس جهادك النبي معها صلوات الله وسلام عليه سؤال كان ندي ويديننا أنت هذا قنت إنسان بدين ترسنتهاي وضيع كل نول وأبيه مسروفة هي aad waxa weeye qarax ku disheen ama madax jabis ku disheen ama maxaa la yiraahdaa ii sheeg aad waxa weeye dhibaato kale ku disheen dhaawac ku disheen midin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen midin tirsan yihiin intaad labada isugu darsadeen midin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel aad gablan ka dhigteen midin tirsan yihiin inta u waalatay taraawmadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midin tirsan yihiin billaah alaykum سؤال كان محا قولود كقادين محا حقيجسين waxa umada ay ku naaloon karto ka dhaxaya maalinka maanta oo aynu ku wada faani karno oo soo noqday caayidka waa maxay aan ku wada faanoon idin ka mid noqonay noo sheegay guusha mise waxa doonaysaan guul darro iyo geeri kaliya umada inay ka wada shaqayso tan maxaa ku weliya kuwa idinka dhaxdiina iska disheen maxaad ku disheen markay idin la jireen maxay ahaayeen markay ay dhibanayeen maxay ahaayeen maxaad cuskateen looma shaqayn karo wax dil kaliya in loo shaqeeyo aba wax loo dilo just dil baan wax u dilayaa waxaan dirayaa wiil aan qaan gaarin qori baan u dhibayaa maxkamadii waa isaga ma tukada haduu doono qaadku cunaa ciyaar suuqnimo kale ku jira xogaa baa loo dhibayaa waxa la leeyahay dadka ummadda indhaha waa soo laa bal leeyahay waxa xageebay diin ilaahay kaga taala waxaas hadii ay wuxuuna yihiin waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuuganimo fulaynimo bahalnimo wax kasto xun ku sheeg waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa su'aal kale idin weydiinaya miis weydiisan fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeyo wadanka joogtay iyo inta fidnada bilowdeen inta ciidan oo shisheeyo oo timid oo ku timid idinka fadligiina iyo shaqadiina xun miis weydiisan inta qaxday miis weydiisan intaas inta ka gaalowday miis weydiisan inta ka inxiraaftay miis weydiisan inta badaha ku dhamaatay iyo banaanada iyo waxa la yiraahdaa saxarayaasha carar iyagoo idinka jira inta reero kala loo miis weydiisan idinka daraadin masawirka laga qaatay wadanka ee foosho xun ee aad ku haysaan miis weydiisan masawirka midna anfacaya haddaad siyaasad doonaysaan walaalayaal meesha loo marayay siyaasadu taas maaha wadankeena siyaasad xun oo idinka noociina aad ka wargeli kartaan waa leeyahay laakiin dariiqad martaan dariiq lagu gaari lahaa ma aha laakiin waa la helayaa mid kuwa capacity-ga kala ah ay ku jiraan gala dariiqeeda soo mara qabaa'ilkiina soo dhaxmara ilaa qoriga ma ogi
fikir qaldan waa qabi kartaan ummadda isa sixi doonta kuwa kale oo qaldan ba waajiraan laakiin waa ku dilayaa هذه فرعونية بعينها garanaysa fircoon bamxulaha waa idin dilaya qortan idin ka goynaya marba la in ittakhadta ilaahan ghayri la aj'alanaka min al-masjunin law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa law sallimannakum ajma'in amantum lahu qabla an adana lakum ma wahad rumaysan Musa anigoon idin idmin هذه فرعونية islam ma waliya waxaan idin ku baaqaynaa ilaahay inaad ka baaqdaan ummadaas aad indhaheedi rideen indhaha la idinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal ayadoo sida aad u geysateen baa dadkanu ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay hore u sii socdaan oo ay ka gudbaan waxaad badeen oo ay diyaar u yihiin inta ilmahooda ah oo la qalday oo idinka haddaad toobad keentaan oo soo laabataan inay idin aqbalaano meeshaad ummadda ka geli kartaan aad ka buuxisaan laakiin sida hadda aad ku jirtaan sidin bixinaysa maaha adduuniya aakhiro waxa doonaysaan si aad ku gaaraysaan maaha berrina waxa la arki doonaa shabaab iyo gaalays wata oo ka tarjumaya wadanka gabi ahaantiisa in la qaato ummadda waxa la gudbaan marka inaan waxa loo dhaafin ummadda laga qabto Sheikh Abdul Nasir dilkiisa astaan wuxuu yahay inaan cid cafisa aanay jirin ma tukata salaada ma taqaana wax ma qori kartaa ummadda intaas laga dagaalamaya qandaraaskana cid kale laga soo qaatay saadarteed hadiiba lagu iman doono hadda dagaalka sii gal cidi gaarab iyo gaashaan kugu noqon karta sii kaasho maamuladeena yaryarka aan boorka ka jafano nimanka xad ha loo yeelo cadow ka daran ummadda Soomaaliyeed ma dhex joogo ilaahay subhanahu wa ta'ala sheekha u naxariisto